dhigiyo yalow hoobe yalow nabaday macaaney nabaddu inay macaan tahay cid walba waa ogsoon tahay nabadna waxaa asaas u ah cadaalad marka la helo ayaa nabad la helaa marka nabad la helana horumar ayaa la gaadhaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat daawadayaal meel walba oo joogtaanba kusoo dhowaada barnaamijkii qurba joogta barnaamijkan oo ugu talagalnay inaynu qurba joogta kaga faa'iidaysano aqoontooda xirfadahooga iyo waayo aragnimadoodaba haddaba barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa hadduu alla idhaahdo xeerka ciisaha muxuu yahay xeerka ciisuhu kolkaa barnaamijkan waxaan ugu talagalnay in bulshada aanu la wadaagno in maaragtay waxa uu yahay xeerka ciisaha xeerka ciisuhu xeer umaahina waa the way of life waa qaab nololeed dhan weeyaan kolka barnaamijkan maanta waxaa marti inoogu ah waxa weeyaan maxamuud dulle oo isagu aqoon u leh xeerka ciisaha oo hadduu alla idhaahdo maaragtay xeerka ciisaha si wanaagsan inoogu macnayn doona kusoo dhawo dulle barnaamijka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh cali aad baad u mahadsantahay waan kusoo dhawa dulle waxa weeyaan horta bal waxa inoo macnaysa dhaqan iyo xeer maxay kala yihiin bal labadaa noo kala saar oo noo macnay bal maanta bismillahi raxmaan raxiim haddaan ka bilaabo dhaqanka dhaqanku waa wax ay bulsho isku og tahay oo kale misaalaan waxaa la idhaha dhaqanku waa dhito meel leh maca wax lagu ururiyey oo dadku iska dhexdhexleen facba faca ku xiga marka waa ra'yi raaslana waa la idhaahdaa waa ra'yi macnihii waa mabda ay bulsha aaminsan tahay ama dhulkana waxaa la idhaha behavior value iyo beliefs waxa la idhaahda weeyaan macnihii waa dadku waxay aaminsan yihiin diin ahaan dhaqan ahaan iyo taariikh ahaanba waa habdhaqan bulsho ama beeli meel ay degan tahay ay isku afgarato oo waxaa la idhaahdaa waa wax ay wadar ahaan wada wadaagaan ama confusion social waxa la odhan jiray bulsho waxay meel ka wada wadaagto marka dhaqankii baa sii kala baxaya marka waxaa jira dhaqanka guurka oo kale way ku kala duwan yihiin bulshooyinku oo haddaad aragtid masaayigu siduu u guursanayo ama dhaqanka guurka ee Kenya dadkan masaayiga la dhaasay guurka ula dhaqmaan iyo dadka Soomaalida ama dadka Nigerianka haddaad aragtid ama Hindiya way kala duwan yihiin marka dhaqan baa loo dhaqanka guurka si ula dhaqmaan
marka haddii aan waxoogaa ka yar taataabsado misaal ahaan dhaqanada kala duwan inagu leenahay iyadoo dhaqan la leeyahay haddana lasii kala baxayaa marka imika dhaqanka guurka oo kale wuxuu ka bilaabmaa haasaawe halxidhaale heshiis hoyn afartaas ayuu maaragtay kusoo dhammaadaa bilowga wuxuu ka bilaamayaa haasaawe halxidhaale oo dadku isweydiinayaan oo qofkan la ogaanaya wiilkan iyo gabadhani maaragtay habdhaqankooga iyo say halxidhaalaha iskugu xidhxidhayaan ama caqligooga lagu ogaanayo gabadha ama wiilku la heshiinayo kadibna hooyin oo guri lagu dhammaynayo kaas waa dhaqanka inagu aan leenahay ee Soomaali ahaaneed dhaqanka waxa ka mid ah haddii aan socdo oo kale yar boodboodo uun waxa ka mid ah dhaqanka la yidhaahdo hadalka sida loo hadlo waa qaab la barto waxa la odhan jiray odayadii hore odhan jireen hadalka dhig adigoon dhaliilin dadkii oo dhaliil ha ku soo gooyin hadalka waxa kaloo la odhan jiray hadalka dhig adoo dhiijintu waxaa ganaanta qofka sii wada un hadalkoo kolba wuxuun ku sii daro hadalka waxa la dhahaa sii dhehda unbaa dishaa la dhahaa kolka murtida un ka hadal haa waxa lagu odhan jiray dhaqanka hadalka waxaa ka sii mid ah dugo dhammaan hadalka dhegayso oo markuu kuu dhaco ka jawaabe laakiin iyagoon hadkii kasoo dhammaan qofka ha gelin hadalkii waxaa ka mid ah kasoo qaad warka dhaqanka warka oo kale ama dhaqanka nabadda oo kale yaa jirta dhaqanka boojintaa jirta dhaqanka dagaalkaa jira markuu dagaal dhaco markay nabad ay dhacdo ay nabadii furato sidii loo xidhayo kale markuu imika nabadi ka dagaal ka dhaco maxaa la dhahaa ciisaha lama idhaahdo dagaal baa dhacay even vocabulary-ga macnaha kelmadda kala bedelan ree hebel iyo ree hebel nabadii baa ka furatay baa la idhaahdaa nabadii ha loo soo tolo waxa la diidan yahay kelmada negative inuu meesha dhex galaan oo ah maaragtay inay noqoto waxa la idhaahdo inay noqoto wixii ay wax adag noqoto oo la adkeeyaa la diidan yahay marka taas oo kale waxa la odhan jiray nabadii baa ka furatay ha loo soo tolo reerkaas yaa la odhan jiray marka taas waa nabadii waxa kale oo kamid ah kasoo qaad dhaqanka markuu aad dagaal dhaco kale waxaa la samayn jiray aas ahaan kadibna ugu dambeyn boqolkii baa la bixin jiray waa dhaqan loo daweeyo dadkii oo erge inta la diro oo saas oo kale ah dhaqanka waxa kale oo jira wadajirka waxa la yidhaahdo dadku inay wada noolaadaan ama cohesion social wixii la yidhaahdo bulshadu inay isku duubnaato wadaagaa walaal lagu yahay la odhan jiray dadka la beri jiray yaraanta horeba xeedhada inta lasoo dhigo iyo hal fundaal lagu cuni jiray sidaaba loogu rajin jiray taasi waxay ku tusaysaa inay dadku isku duubnaadaan waa dhaqan waxa ka mid a war la helaa tala la helaa la odhan jiray waa wadadeg iyo wadadan baa la odhan jiray saddexdaana waa laga sinaa ama hadduu qofku dhibaato ku dhacday in loo tago dee loo tacseeyo lala aaso la gargaaro eel iyo cawsna waa lagu midaysnaa waxaasoo dhan waxay ahayd wax dhaqanahoo dadkii communality-ga la raadinaya dadku inay isku duubnaadaan marka dhaqanku wuu ballaaran yahay haddahaan waxaan kasoo qaaqabta u maaragtay qayb yar oo ka mid ah si aan miisaal u aragno marka dhaqanku waa intaaba usii kala baxbaxaya isaguba uu sii badnaanaya kolka waa wax bulsho meel degan ay ku heshiisay cid walbale bulshadaas cid walbale oonan cid gaar aan ahayn taasaa dhaqan kolka xeerku muxuu yahay isagu okay xeerku wuxuu yahay waa wax lagu heshiiyey bulsho ay meel wada dhigatay marka xeerku inta badan marka la eego waxa halka ugu dambaysa macnuhu xeerka waxa loo samaystay bulshadii wanaagsanaydii markuu mid kamid iyo xumaado wax qabta waa dabar definitionka ugu dambeeya sharaxa ugu dambeeya qayax laga bixin karo muxuu noqonaa waa dabar bulshadani markuu mid ka baxo khadkii lagu qaban karo waa dayr siduu xeerka ciisuu yahay iyo dabar iyo dallad saddexdaasba uu yahay xeer kastoo bulsha ay dhiganaysana waa definitionkan unbuu soo galayaa soomaali noqotayaa qoomiyad kale noqotayaa xeerku waa halka ugu dambaysa ee dadka inay wax qabtaan loogu talagalay baa kaas marka xeerkii isugu markaa wuxuu noqonayaa wax ballaaran oo
noloshoodii oo dhan ba soo wada koobaya. marka definitionka kale ee xeerku leeyahay ugu dambeeya qayxaad wuxuu inuu nabadda ilaaliyo. nabadda ayaa lagu ilaaliyaa xeerka, oo wax kastoo la qabanaya ama xeerka ciisu wuxuu ka dawan yahay waxa kale waa nabadda ilaalinteedii iyo dadka wada noolaanshaheegiibuu ilaaliyaa. marxaba. iminka waxaa si wanaagsan aan noogu qeexday waa dhaqan iyo xeer. haddaba haan u soo noqonna xeerka ciise. xeerka ciisuhu goormo ayuu bilaabmay? maxayna u samaysteen xeerkaas iyaga u gaarkaa? waxa weeye horta waqtiyadii la bilaabay sidaan ku aragnay buugaanta la qorayba waa qarnigii 15aad dhexdiisii bilowgiisii baa la isku hayaa. laakiin muhiim waxa weeyaan bal halka backgroundka intaan ka soo dhaqaaqno naloon maxaa loo sameeyey reasonka ama faa'iidada ama maxaa keenayba inuu xeerba yimaado. wuxuu xeer ku yimiday 4 shay in laga badbaado. markay dadku wax arkaan iyo xeer la samaystaa dhibaato dhacday la dhahdaa maxaa inoo xeer ah. marka 4tii shay ee dhacday si looga badbaado ayaa kamid ahaa waxaa jiri jiray ama waxaa dhaci jiray marka hore inuu damac yimaado, kadib inuu yimaado duulimaad, kadib inuu haddana yimaado dil, kadib inuu yimaadona dhac. 4taa shay si looga badbaado ayaa marka xeerka horta loo samaystay. tan dib ugu soo celiyo dadka waa damac, duul ama duulimaad, dil baa imanaya, kadibna dhac. 4tuba waa sequence waxa la dhahdo wax isku daba xigxiga. qofku intuuna horta waxaan gelin damac baa qabta, kadibna actionkiiba ku daraa ficilkii oo dee uu kusoo duulaa qofkii haddii uu wixiisii inuu kaa ceshada uu rabo uu resistant keeno waxaad ku qasban tahay dee inaad dishid si aad u qaadatid wixiisii. qofkii markaad dishid wixii ka hadhayna waxay noqonaysaa waa dhac. inaad damacdid xoolihii iyo wixii soo bilowga hore waa damaca baa imanaya, kadibna actionkii waa duulitaan. dilitaanku waa qofkii ood ka qaadatid wuxuugii ama geelowgii kasoo qaadatid, kadibna waa boojimadii baa dhaca in lasoo boojisato oo soo qaadato. 4taa si looga hortago ayaa xeerka horta loo samaystay. hadday noqoto ciise dhexdii iyo wixii kale ee dibadda kaga imanayaba. waan gartay. kolka iminka matalanba waxaad soo sheegtay kolka muxuu yahay 4taa marka la eego haddana artikelada kale waa inay sii kala kacaan soo maahay. kolka 4taas maxay tahay artikelada? 4taasi waa 4tii ugu muhiimsaneed udubka u ahaa, udub dhexaadka u ahaa. kolka 4taa maxaa kasii farcamaya oo maaragtay sii qeexaya? intaan taa uga jawaabin waxaan kugu dari lahaa waxa weeyaan 4tan marka waxa ka dhasha 2 shay. qofkii mar alla markuu soo dhaco wixii wuxuu noqonayaa inuu boojimo sameeyo oo kale. qof kasti oo maaragtay wax soo dhacay si khaldan u soo dhacay xeer la'aan u soo dhacay wuxuu noqonayaa qof wixii soo boojimay oo marka si xalaal ah u soo qaadan. marka boojimadaasi waxaa ka dambeeya inuu biili ka dhasho. maanta geelaagii baad qaaday, adna maalin dambe un baad itaal yeelan doontaa ood geelayaga qaadi doontaa. marka waxay noqonaysaa waa wax kolba dhan u socda. aargoosigii baa imanaya. marka waxyaabaha si looga badbaadaa marka xeerka loogu samaysta 4taan ku soo sheegay natiijadu waxay noqonaysaa inuu maantana geelaaga qaadid beritoona adna geelaaga qaadid. marka si taa looga badbaadaa 4tan loo samaysta. marka xeerkii markii la dhigay ayaa la yidhi 6 kabood 12 kabood buu ahaa xeerku. 6 kabood waa la qariyay baan odayada ka haynaa. 6 kabood baa markaa la soo saaray oo lagu dhaqmaa. kabtu waxay ka dhigan tahay xagga sare haddaad eegtid kab baa u sarreysa. marka kabtii baa sii hoos u dhaadhacaysa oo ilaa indhal bay tegi doontaa. macnihii haddii 6dii kaboodun haddaan kuu dul maro kabihii markaa waxay kala noqonayaan waa sidii artikeladii waaweynaa oo kale ama bills waddankan waxa la yidhaahdo ingiriiska. waxaa kamid a kabta dhaqanka.
oo kab ugaasna loo yaqaano waxa la wixii bulshada iyo ku saabsan maaragtay dhaqanka ku saabsan. kabta dheerta ayaa jirta, kabta dhaqaaqisha ayaa jirta, kabta dhulka ayaa jirta iyo kabta dhible. kabahaasi way sii kala babaxayaan, waa artikalo, waa kab, qodob, sidaaba usii socon doonaan. marka 60 kabood unbaa lagu dhaqmaa. marka kabtan dhaqanka haddaan bilowna hadii waxaan noqotaa inaan maalin kale iyadana ka sheekayno kab kasta oo maalin kasta laga sheekayo oo la yiraahdo sanay tahay. marka sidii waxaan hadri 60 la qariyay iyada wali lama tilmaamay miyaa meel ayaa la iska dhigay? lama garanayo midhaan odayana wali lagama hay, laakiin sidaa uma ku maqalay say odayda ku hayna, laakiin 60 unbaa la hayaa oo lagu dhaqmay. kolka waa 60daas ayaa imika ahaan maaragtay u ah asaas u ah. kolka 60daas ayay ka sii farqamayaan xeerarka kale. xeerarka mid kasta marka la sii dhex galo ayay sii kala baxbaxayaan. oo marka qodob kasta markuu imanayo wuxuu kaga roon yahay xeerarkan kale ee European-ka marka la eego xeerka isugu qodob kasta wuxuu samaynayaa sidii suugaanto kale u qodobaynaya. hadal kasta oo la keenaba wuxuu keenayaa hadal yar oo sidii rim iyo ritmi leh, jiib iyo jaan leh oo lagu qaban karo qodobkan ayuu keenayaa. tan kale waxaa jirta tan kale sida definition oo kale ee xeerka maad aragtay la qeexayo kale xeer waa dayr, dalad iyo dabar. taas shantaas ayada ma noo dul mari kartaa? shantan caadi ahaan markaan iminka dul dhaagno tii dhaqanku waa dhaqankay, dheertu waa waxa la wixii maaragtay dumarka iyo ku saabsan maaragtay maxaa la yiraahdaa ciyaalka waxa la wixii ku saabsan. dhaqaaqishu waa waxa la wixii ku saabsan maaragtay materialka, sida ka soo qaad hadduu firin ka halaabo inay firin haddii laga xado kale, masolada waxa la wixii material ah sidii loo maaragtay loo magayay ama sidii loola dhaqmayay. tani dhulku waa waxa la wixii dhulka ku saabsan oo ah maaragtay difaacii, duulimaadkii, sidii waxa loo ahaan lahaa oo dhan dhulka in la kala lahayn, ceel iyo caws. inkasta oo maaragtay saddex ay ku kooban tahay oo la yiraahdo dhulka ugaaska lama kala leh. waxyaabahaas oo kan waa waxyaararkii soo galiyay. kabta dhible waxa weeye kabta ku saabsan affaire étrangère waxa la yiraahdaa arrimaha dibadda oo kale ee ka baxsan xiisaha. hadday dad kale oo xiise aan hayni dhibaato ama loo geysto ama iyagu xiise u geysto kale sidii loola dhaqmi lahaa. marka dadkiina uu kala saarayaa. qoladan Soomaali ugu dhow wuxuu odhanayaa waa ahl, xabashida iyo oromada iyo dadka kalena wuxuu odhanayaa waxa weeye herimaad. kii ka sarreeyana hadii wuxuu noqonayaa wixii gaal buu noqonayaa dhowto. kolka herimaad markaan leeyihiin maxay uga jeedaan? herimaadku waa Soomaaligaas u jilci dadka. herimaadku caadi ahaan waxa weeyaan marka la eego xeerku waa isada imka dadkan aan Soomaali ahayn ee la deris ah xiisaha sida oromada, xabashida waxyaabahaas oo kale. iyo herimaad kolka gaalkana waa ninka cad miyaa waxay uga jeedaan? waa gaalkii kale gaalkii cad weynay ka baxsaneen aan u dhaweyn iyakii iyo kala marka way kala saareen. marka qolo kastaba si loola dhaqmo ayay marka keeneen. markastoo xeerkan la dhigayana qofku inuu xasuusto weeyaan contextkii ama qaabkii waqtigii la dhigay inuu eego oo ishii waqtigii ku eego inuu ku eegin isha maanta. because waqtiga waxa jiray looltan riixitaan leesriixay oo dhulka ku saabsan iyo boojimo iyo maaragtay iska dhici iyo waxa soo dhan baa jirtay. oo in la sameeyo waxyaabo xeer ah oo maaragtay ka qabanaya dadkan kale adiguna ku xadgudbin iyagana isay kugu xadgudbin. kolka marka aad leedahay in waqtigii hore loo noqday ilo waqtigu waa isbedelaya, isbedelka miyuuna la jaan qaadayn? may waa uu la jaan qaadaya, laakiin marka la eego kelmadda marka la xeerka la macnaynayo kelmadda saa loo eego harimaad la yiraahdo oo kale ama la yiraahdo qoladaaba saabaa jirta waqtigaasi oo waqtigaas, laakiin imika say way isbedeleen wixii waxyaabo badan oo iska bedelay baa jirta oo dhaqankii marka hadhowto sidii bulshadan kale loola dhaqmayo waxay noqonaysaa kolba waqtigu siduu yahay. laakiin berigaasi sidii loo dhigay baa sida ahayd inay dadka u kala saaraan ehel, harimaad iyo qoladii gaalka ay u kala saaraan. kolka imika halkaas waxaad ka dhawaajisay in xeerka ciisuhu uu maaragtay
qaybo badan uu leeyahay siduu maaragtay arrimaha dibadda ula dhaqmi lahaa siduu maaragtay deriska ula dhaqmi lahaa si waxyaalaha maaragtay la isku qabsado hadday dhul tahay hadday dunyo tahay ula dhaqmi lahaa kolka intaa aad maanta soo sheegtay dhammaanba waxa ay ka turjumayaan waa asaaskii xeerka ciisaha kolka intan aad maanta soo sheegtay marka la eego haddana mid walba intaas baa hoos iman doonta hadhow toolo oo ay leedahay maaragtay maamulkeega iyo macnaheega gaarka ay leedahay kolka aad iyo aad baad u mahadsan tahay maanta waxaan rabnaa man intaas maaragtay inaynu maaragtay horta dadka aanu u sharaxnay ahayd oo maaragtay ogaadaan muxuu yahay dhaqan muxuu yahay xeerka ciisuhu imse qodob buu ka kooban yahay guud ahaan introductionkaas ayay ahayd maanta maaragtay waxaan ugu talagalnay bulshada maxamuud aad iyo aad ayaan maaragtay kaaga mahad celinaya waqtigaaga qaaligeena siisay daawadayaal waxa weeyaan maxay ahayd maanta waxaynu ugu talagalnay waxa weeyaan guud ahaan inaan sawir guud aan idinka siino xeerka ciisuhu maxuu yahay asaaskiisii maaragtay udubdhexaadkiisii dhammaanba xeerka kolka hadduu alla yidhaahdo barnaamijyada soo socdo waxaynu maaragtay aan kaga hadli doonaa maaragtay xeerka oo maaragtay mid mid ayaynu usoo qaadan doonaa muxuu ka qabaa maaragtay marka maaragtay dhul la isku qabto muxuu ka qabaa marka dunyo la isku qabto deegaanka dadka lala degaya waxaas oo ku dhan hadduu alla yidhaahdo mid mid ayaynu usoo qaadan doonaa barnaamij wuxuu noqon doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo noo socon doona oon ugu talagalnay bulshadu in ay barato xeerka ciisaha kolka magaciisu waxa weeyaan baro xeerka ciisaha oo kolka waxaan ugu talagalnay bulshada dhammaantiiba hadday Soomaali tahay iyo haddii ay maaragtay bulshada inteeda kaleba tahay daawadayaal barnaamijkii baro xeerka ciisaha qaybtiisii maad aragtay su-aasha kale aan ku dari lahaa waxa weeyaan cali si programka maalinta dambe waa googin kartaa sooma ما واللايف وين وأوران كرتا waxaan oran lahaa programka dambe maalinta dambe si aan u faahno waxaan samayn kari lahayn oon dadka u sharxi lahayn waxa weeye in aan dhahno maadaama wuxuu xeer yahay oo bulsha dhigatay xeer kasti oo bulsha dhigato saddex shay baa ilaaliya saddexdii shay ciisuhu xeerkiisu ma leeyahay mise male kow xeerka koowaad ama xeerka waxaa ilaaliya saddex shay booliiska maxkamad iyo xabsi saddexdaas ayaa ilaalisa xeer kasti oo adduunka la dhigo macni marka xeerkii laga khaldamo waa inuu booliis soo qabto waa in maxkamad la keeno qofkii khaldamay waa in xabsi la geeyo saddexdaas xeerka ciisuhu ma leeyahay mise male inaan kaga jawaabno barnaamijka dambe haddoo kolka barnaamijka dambe sidaa uu maxamuudba soo sheegay ciddii su'aal ka qabta saddexdaa uu soo sheegayna way maaragtay boggeega jib media ayay noogu reebi doontaa waxaanu ka hadli doonaa waa saddexdaa uu soo sheegay maxamuud hadduu ilaahay idhaahdo qaybta dambe hadduu ilaahay idhaahdo qaybtii hore intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa intaynu dib u kulmi doonno waa aniga cali casoowa waxaan idin leeyahay saas iyo nabadgelyo.